بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أمور الدين والدين كسر هذا عشر يرو قابن أو إنه كجش كين دونه كيبلدا أينو قريهنا مهردهنا إيو نرشينا كميت كأنه حوجه استعماله هنقدر قوة كمبيوتر الله استعماله هنقدر كيبلدا دبك الله استعماله هنقدر قوة كلا دوان عاد عن إسلنا هاي وهي كان فعيان إن مقعيدو ضلبرتو waayo waxaan arkay inay caqabad weyn kala haysato dadka iibiya iyo dadka iibsadayaasha ee customerska cable-ka magaciisa dad u sheegtid inuu qofka iibinaya una magaciisa kula fahmaynin kadibna ay qaadanayso waqti ilaa iyo aad sawirka tusaysid haddaba halkan kaga wada sheekayn mayno dhamaantii laakiin waxaan ka sheekaynaa keliyata kuwa useful cables kuwa cablada ugu isticmaalka badan ugu horreyn waxaan ka bilaabaynaa dabka ama kuwa loo yaqaano dab qaybisooyinka iyo xarkiheena dabka magacyadooda baranayna marka koobaad marka AC waxay u taagan tahay alternative current-ku waxa la yiraahdaa waa DC midna waa alternative power cord iskaasi oo standard leh ugu horreyn aan barano kan oo loo yaqaano UK standard ayaa loo yaqaanaa waa kan inaguna runtii Soomaalidu xoog u isticmaasho waa kan leh saddexda god mid live wire weeyaan midna waa neutral midna waxa weeyaan earthenki weeyaan marka godkana sidan oo kale ayuu leeyahay marka started from today maanta laga bilaabo waxaan baranaynaa cable-ku haduu biinan saas oo kale leeyahay waxaan u bixinaynaa mail haduu godad saan leeyahay waxaan u bixinaynaa vmail anoo ma bixinayo laakiin waa standard kale isla yaqaan marka noocan hadaan aragno waxa weeyaan baleenahay UK standard weeyaan noocani waa marka koobaad oo wadan waliba standard aan idhaahdo ee qaarad waliba waxa loo badan yahay standard gaar ah inay leeyihiin kan marka waa UK standard ama British standard waa kaynu badanahay kan waxa loo yaqaan Australian power cord ama Australian standard ayaa la yiraahdaa qaabkan uu sameeysan yahay labada neutralka marka earthenka marka laga tago aan idhaahdo neutralka iyo live-ku waa curved waa si isku soo yara qalloocda oo labadoodaas waxa weeyaan way isku soo yara horjeedaan marka qaabkaas uu sameeysan yahay waa Australian standard kan waxa loo yaqaan American standard saysahan inaga lafteenu waan isticmaalnaa oo keena waxa loo yaqaan UK standard ku lamid yahay laakiin kan laftiisa waan isticmaalnaa aadna ugu ma badnin wuxuu leeyahay isaguna sidoo kale waa saddex god oo mid ka dhaxe uu yahay mid isagu u sameeysan circular u sameeysan kuwana yihiin laba rod oo iyagu flat ay yihiin okay ka afraad waxa weeyaan European standard waa la yiraahdaa UK standard waa la yiraahdaa marka kii hore soo aragnay la mid weeyaan laakiin wuxuu kaga duwan yahay kani laba god buu leeyahay waa farqiga u dhaxeeya marka hadaynu aragno kan iyo kii hore UK standard labadoodu waa European standard ama British standard waa isku mid inta badan Europe ayuu guud ahaan caan ka yahay laakiin kii hore aan arkaynay gaar ahaan UK ayuu caan u yahay maadaama United Kingdom iyadu Europe inteeda kale ay midoow ahaan kaga baxday marka sidan qaabkan ayuu sameeysan yahay marka adigu ka doonaysid waxaad leedahay European standard baan u baahanahay ama waxaad leedahay waxaan u baahanahay maya UK standard sidan oo kale u baahanahay laakiin UK standardku halka wuxuu ku leeyahay fuse-kaasi hadii uu koronto ka badan dabkii loogu talagalay device-kan aad ku xidhan tahay aad ku xidhiisatay uu ka bato oo tusaale ahaan dab fara badan kugu soo dhacayo fuse-ka gubanaya marka hore haddii ku shaqayn waayo waxaan kugula talinaya halka yar baad furaysaa fuse-ka halka ku jira ayaad qaadaysaa ama waa 10 ampere ama waa 3 ampere ama waa 10 ampere most commonly saddexda mid bahood bay noqdaan waad qaadaysaa dukaankaad la tagaysaa ka mid la mid aad soo iibsanaysaa ama mid ka xumato noocan oo kale ayaad gashanaysaa oo aad ka bedelaysaa kaasina waa habka labaad ama qodobka labaad ee aad ku dayactirin kartid adiga laftaada marka UK standardka iyo European standardku way shabahan waana commonly labadeenu may xoogno inoo isticmaalna gaar ahaan adba Soomaalidu maadaama China lagu soo sameeyo ayaan isticmaalna kuwan commonly ma aragno laakiin haddaad AC isticmaali sidoo kale waad arkaysaa tan oo kalena waad arkaysaa sometimes waxa iyagana loo yaqaan waa Indian iyo South African power cord baa loo yaqaan South Africa ay caan ku yihiin iyo India kuwan ugu badnaan AC-yada inoo yimaada qaar baa noocan ah marka noocan kulka u sameeysan tahay waa inaad heshid sidoo kale power outlet-ki u gali lahaana waa inaad haysatid sidoo kale
marka noocani waa common Indian buu ka yahay iyo South Africa standard baa la isku yiraahdaa ama noocan wada arkaysaa noocan wada arkaysaa actually anigu waan tagay South Africa challenges ka la kulmay waxa kamid ahayd dhammaan dab qaybisooyinkiisa oo dhan noocan ay ahaayeen marka waa inaad haysataa adapterkii ku haboonaa ee aad ugu sii bedeli lahayd nooca computerkaaga oo ku xidhmaya magaca guud ee loo yaqaano breesada ama dab qaybisada ama magaca doontidu waaqo waxa la yiraahdaa power code extension code ba loo yaqaana dad power extension idana waan arkaa laakiin extension code ayaa caan ah oo ah magaca inta ugu badan loo isticmaalo marka inta waxa igu dambeynaya hadii tusaale ahaan UPS aan isticmaalayno UPS waxa loo soo gaabiyaa u waxay u taagan tahay uninterrupted P-duna waxay u taagan tahay power S-duna waxay u taagan tahay source marka UPS ka hadda isticmaalaysid tusaale ahaan cable noocan aad u baahanta waxa loo yaqaanaa back to back baa loo yaqaanaa back to back waxa loogu bixiyay dhinac waa mail dhinacna waa vmail dhinac wuxuu ka gelayaa UPS ka dhinacna device ka isticmaalaysid buu ka gelayaa markaasi waxa loo yaqaanaa back to back baa loo yaqaanaa marka UPS yada cable kan caan ku ah